Supposed. Hey! I'm rich! I'm rich! So marka waxyaabaha ka rajaynaya waxay tahay in breakout uu dhici doono aan rajaynaya test uu dhaco ilaa ay gaari doonto KGBY bartaan ugu sareyso oo aan arki doono meeshaan in waxay hay uu ka dhaco si traderkeygii haddii aan booqano waxaa meeshaan u jeedaa in trade uu iga furan yahay KGBY oo waxaan u jeednaa almost loodka aan ku galay inuu 1.60 uu yahay $8.20 faa'iido aan ku jiro stop losskeygii uu yahay $557 halka take profitkeygii uu yahay $1,143 5 hours later. sidaa u jeedin finally targetkeennii waan gaarnay oo lacagtaan KGBY sidii aan u dhammaystiray exactly wadadii aan u jiray take profit meeshaan dhigtay ayay soo taabatay oo 100 bibis ayaan sidaa ku kungareynay totalka faa'iidada aan ku jirno haddii aad fiiriso mowskeega waa $1,117 exactly bibka faa'iidada aan ku jirna waa 98 bib oo ah 100 bibka aan taageerinaynay almost waxaan taaganahay take profitkeeni meeshaan ka qaadan leeyahay oo tradekan waxaan leeyahay السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سوري صاحبي اللباتين حرجنا عافمات قبطان مقال كيني ما تكسبسين هاي مقال إن بدر إيجا سو أستين هوران مسميوا فلان كين توصح أنا يوسمينا يا أما لاف فيلم وخير هذا نقطة سمينا وعجر مقال كان كوري وأسميه واجي أنت فورش الاستعمالي سي ولما يرب بدن إيجا بدنا مرة مقال كان سمينا so muuqaalkan markuu ku saabsan yahay anigoo sameynaya live trading ama mid ka mid ah ee akoonka shirkadda ku trade gareynayo si toos aan idin socodsiinayo sidii aan hore u sameeyay camal inaan trade qaato ilaa tradekaasi take profitkeygii ama stop losskeygii ku dhacayo aan idin soo gudbiyo inta faa'iido inta aan tradekaasi aan ku khasaaray iyo lacagta trade gareyn doono iyo qaabka aan u analyze gareeyo ama meelaha aan rajayn doono inay aadi doonto jihada aan mudari doono ama jihada aan rajaynayo inay lacagta aadi doonto so lacagta aan ku trade gareynayo ama tradekan ka qaato waa KGBY inta KGBY garin ugu horeen waxaan rabaa inaan idin tuso akoonka inuu akoon live yahay oo akoon blue fix yahay sida inta u jeediyeen waxaan u jeednaa in akoonka akoon blue fix uu yahay weliba akoon 50k uu yahay ama akoonka kontonka kun uu yahay halkan waxaa u jeedaa ilaa 4 stage oo 1 milyan aad ku gaarayso haddii aad rabto warbixin dheer ah sida 1 milyan aad ku gaarayso muuqaal hore aad kasoo sameeyaa jiro so waxaa u jeedaa akoonkeygii inuu active yahay akoonka inuu borow yahay oo 50k uu yahay taariikhda uu dhacayo lacagta total withdrawal ka sameeyay inay tahay $2,500 lacag payout-ki aan helay inay tahay $1,552 haddii aad rabto cadeymo ama shirkaddan payout-koodii ama withdrawal-ki muuqaal hore uu sameeyaa jirto ama si toos ah lacag walba hay muuqaalka single description ku soo dhiga haddii sidoo kale xiisaynayso in shirkaddan kusoo biirto fadlan hilmaamina linkii description iska diiwaan geliso si wax alaale wixii caawinaad aad iga baahnaato aniga iga soo xiriirto haddii dokumentiyada localka Soomaaliya aad isticmaalayso sida driver license warqadda dhalashada iyo sugnaanta warqadaha maamul goboleedyada sida Puntland iyo kuwaas hay'adahooda ay bixiyaan dad isticmaalayso lufkiis waa iskaga diiwaan geli kartaa sidoo kale dokumentiska Somaliland passportkoodii driver license-koodii iyo dhammaan hay'adaha Somaliland documentiska ay bixiyaan waa isticmaali kartaa laakiin ugu horreyn waxaa lagaaga baahan yahay inaad linkii description-ka iska diiwaan geliso kadib documentiska aniga aad ii soo dirto dad shirkadda aad xaq u kama aqbalayaan so aniga ii soo dir anaa kaa jeegareenayo kadib anaa ayaga la wadaagayo oo verification-kaaga waxaa kaa habeena so halahan waa hordhacay ay ku tusay inuu akoonka akoon live yahay aan dib ugu laabano live trading-kii ama lacagtii aan rabno inaan trade ka qaadano so mar walba muuqaalka inuu muuqaal dheer noqdo waxaan rabnaa ilaa meesha ugu dambeyso aan targetka gaarayo ama khasaarayo trade-ka inaan idin wadaago so lacagta aan jaaniska ka raadinayo ama aan trade-ka already aan ka qaatay waa KGBY KGBY sida u jeedno ama haddii aad overall-ka ama market-kan haddii aad fiirisid jihadiisa tooska waxaan u jeednaa in muddo buy ay kusoo socotay oo mar walba ay sameysanaysay calaamadaha buy-ga lagu yaqaano ah higher-kii sare midkii sareeyay markaan waxaan u jeednaa in markay inta soo jibisay ee si fiican u soo dhaqaaqday oo almost high-gii ugu weynaa market-ka markaas uu bilowday waxaan u jeednaa in bartaani ay ka sameysmatay breakout aad u muhiim ahay oo qofkii meesha hadduu ka raacay uu dad fiican oo ka qabanayay so waxaan u jeednaa in
marketkii muddo consolidation oo sal ku jiray kadib uu soo jibiyey waxaan ku trade gareynayaa waa 4 hour kadib aan aragnay in marketkiisi in laba caadi ahaan uu kor u dhaqaaqay almost uu dhaqaaqay wax ka badan 170 dib u dhaqaaqay so marka maxaa trade-ka u qaadanaa ama sababtii ugu dhalisay trade-ka inaan qaato waxaa waaye ugu horreyn waxaan u jeedaa ama Janis ka soo helay in GBY-da ama CAD-ka inuu strong yahay GBY-dana ay daciif tahay so macnaheedu marka waxay tahay in CAD GBY markaas ay buy aadayso maadaama GBY-da ay daciif so marka waxaan ka filaa trade-kaani oo aan ka rajeynayaa ama aan jihada u qaatay inay buy tahay almost hadda waxaan ka galay 105 ayaan ka galay oo si trade-keygii ayaan ka hadsi doonaa so marka waxyaabaha ka rajeynaya waxay tahay in breakout uu dhici doono aan rajeynaya test uu dhaco ilaa ay gaari doonto ka GBY bartaan ugu sareyso oo aan arki doono meeshaan in waxay uu ka dhaco so sidoo kale sababta labaad aan trade-kan u qaadanayo waxa waaye transaction-kii qofkii yaqaano waxaan u jeednaa bartaan supportigan adag aheeday in marketkii uu jibiyey mar labaadna waxaan u jeednaa consolidation inay meeshaan ka gashay kadibna waxaan meeshaan ka helnaa in retest ay soo samaysatay ay soo retest gareysay oo barteedii dib ugu soo laabatay taasoo macnaheedu noo sheegayso in aan rajeynayno haygii horay ee bartaan inoo yaalay hay ka sareeya inaan aragno ama hay cusub hayar horay hayan hadda inta noo yaalo aan rajeynayno hay kale ka sareeyo inuu imaado so meeshaan hadda u jeedid waa bar aad u muhiima oo waxaan aragnay dhowr mar inay meeshaan soo taabatay oo intana waxaan u jeednaa breakoutkii weynaa ama supportkii weynaa inuu meeshaan noqday so marka waxyaabaha u buy gareynaya waxay yihiin waxaan u jeednaa breakout inuu dhacay waxaan u jeednaa retest inay soo samaysatay so marka waxaan rajeynayaa ka GBY inay bartaas tagi doonto targetkii almost waxa waaye 100 bid oo ilaa waxaan rajeynayaa in meeshaan markay timaado aan aragno in meeshaan double top noqon doono ay dib u soo laaban doonto ama inaan meesha ka aragno higher cusub inuu market ka samayso doono so setupkii saan ugu diyaarsan yahay oo ka GBY waxaan rajeynaa ilaa higher cusub inaan arki doono si traderkeygii haddii aan booqano waxaa meeshaan u jeedaa in trade uu iga furan yahay ka GBY oo waxaan u jeednaa almost loadka aan ku galay inuu 1.60 uu yahay $8.20 faa'iido aan ku jiro stop loss-keygii uu yahay $557 halka take profit-keygii uu yahay $1,143 taasoo micnaheedu tahay risk reward ratio aan isticmaalayo ama wax ka raadinayo in ay la mid tahay 1/2 oo $500 ayaan qasaarinayaa sida meeshaan hadda ugu jeedid stop loss-keygii si aan u helo $1 so trade-kan ilaa meesha ku dambeeyo ama meesha ugu dambeysa uu gaaro baan idin wadaagi doonaa so wasku soo laaban doonaa insha Allah qasaari faa'iido waxaan noqon waa ila socodid A few moments later. isku soo noqon wanaagsan saaxiibayaal sida u jeedid targetkeeni sida hore kuu sheegay waa in high-gan koray aan aragno high cusub samaysanayo ama at least boqolkeeni dib uu noo gaaro halka bartaan markuu soo gaaro aan market iskaga bixi doono so update ugu dambeeyay waaye ilaa 60 bib oo faa'iido ayaa ku jirnaa targetkii ilaa trade-kan xilliga aan ka xiraayo inta faa'iido aan ku xirayo oo kula soo socodii doona so wasku soo laaban doonaa hadduu targetkeeni gaaro 5 hours later. soo noqon saaxiibayaal sida u jeedin finally targetkeeni waan gaarnay oo lacagtan ka GBY sidii aan u analyze gareeyay exactly wadadii aan u diray take profit-kii meeshaan dhigtay ayay soo taabatay oo 100 bibis ayaan sidoo kale ku kuntareynay so haddii aan kula share gareeyo markii hore oo trade ku aan bilaabay ka GBY almost meesha ka kana ujeeda oo waa 833 haddana exactly waxaan ku tilmaamay in bartaas ay taaban doonto sida hadda u jeedno waxaan taaganahay bartii aan hore ugu calaamadeeyay oo ah in halkan ay imaanayso so hore waxaa kuu sheegay in bartaan imaanayso waxaan ka booking gareysanay ama almost aan ku jirnaa lacag gaarayso all bid oo faa'iido ah so haddii si traderkeeni wada booqano si aan kuu tusiyo bal meesha wax ay marayaan faa'iidada trade inta profit-ku uu ku jiro so waxaan u jeednaa hadda si traderkeygii ayaan joogaa oo ku dhex jira waxaan u jeednaa totalka faa'iidada aan ku jirno haddii aad fiiriso mouse-keyga waa $117 exactly bibka faa'iidada aan ku jirna waa 98 bib oo ah 100 bibka aan taageerinaynay almost waxaan taaganahay take profit-keeni meeshaan ka faa'iido leeyahay oo trade-kan waxaan leeyahay waa trade-kii ugu horeeyay week-kan aan qaato akoonka trade gareynaya waa akoonka 50k pro-ga oo ay profit ay leedahay so haddii aan qaybta analysis ka tagno
si aan u wada fiirino akoonka iyo meeshaan wax marinayo. So qaybtida dashboardka hore waa aragtaa fila trade-kan waa trade-kii labaad aan weegan qaadanayo oo hor trade kale ayaan u qaatay oo aan suuqi ugu baxay. So akoonka waxaa ujeedaa equity-giisii ama equity-ga akoonka hadda maraya exactly waa $51,160. lacagta deposit-keeda waa $50,000. So waxaa ujeednaa sidoo kale percentage profitable-keega in boqolkiiba boqol trade-da aan qaatay ay profitable yihiin oo aan waxba ku khasaarin. sidoo kale waxaa ujeedaa profit factor-keygii ayadana almost 0 yahay maadaama trade-kii weli uu socdo aanan trade-kii weli xirin. sidoo kale haddii qeybaha hoose aad fiirisid waxaa ujeedaa volume trade-ka aad hal waaye boqolkiiba boqol ugu guuleystay. So trade-ka kalena hadda wax kii socdo waaye. trade-na qaatay trade-kii koowaad uu ahaa US dollar aan iskaga baxay $65 markaan ku xiray. equity-geygii waxaa ujeedaa 51,000 ama 50,000 inay kor ugu sii kacday. So waa kahay trade-kan meeshaan rabnay ujeedkiisii jihada aan u dirnay waa aadnay. haddii aad xiiseynayso ama shirkaddan kuufikiisa darabto soo biirto linkiga description iska diiwaangeli wixii caawinaada telegramkaas aad igala soo xiriiri kartaa aad ugu baxnaad xaggaan. So dhalinyarada badan sababtoo sameynaa waxay tahay dhalinyaro badanaa jiro oo targetka dib u qaba ama la hayo shirkadda loodsaska ka xiriyo wax xadidaad u jiraan waa ujeediin haddiiba $1,000 aan trade ka sameynayo. So almost target weyn 500 ka dhiman laba trade ayaa iga dhiman inaan targetkii xiro. keliya waxay u baahan tahay nidaam system ku degsan iyo strategy fiican oo profitable inaan leedahay. So trade-kani waan ku guuleystay oo almost targetkeygii waan gaaray. waxaan rabaa hadda inaan iska xiro oo aan marketkii gebi ahaanba aan ka baxo. So hadda waxaan ku jiraa traderkeygii almost trade-kani wuxuu soo gaaray 690 oo waxaan rabaa inaan marketkii keygii doolarka iskaga qaato. So marketkii waa iskaga baxay trade-keygii waan xirtay oo almost suuqii waa iskaga baxay. haddaan dib u laabano aan bal fiirino haddii aan dib u laabto oo aan fiirino tee analyskeyga akoonkeyga iyo inta jirto almost waxaan arkayaa in akoonkii hadda ay ku darsoontay $1,000 oo waxaan u jeednaa balance inay tahay $52,056. So trade-kan intaa kale muhiimadiis waa gaarnay. 2 maalmood ay igu qaadatay inaan si live ah ugu trade ku tusiyo ilaa meeshuu ka xirmayo. So muuqaalkaani hadduu hadda soo gaaray ama aad ilaa hadda ila soo gaartay ama aad ila soo gaartay qaybtii ugu dambeysay wax ka codsan lahay inaad muuqaalkaani like saarto subscribe gareyso haddii ay subscribe saysanin telegramkiina kusoo biirto linkii description-kiina aad diiwaangeliso haddii caawinaad aad iga baahnaato aad si private igu soo xiriirto telegramka. So muuqaalkaani muuqaalka inta ku kulmeen waxaan iga tagaa sidaas iyo nabadgelyo. Salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.